wasiirka horumarinta deegaanka Somalailand oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay dhul lagu kaydin doono dhirta kala duwan laguna beeri doono ama neersare u yeelan doonto wasaaradda deegaanka ee Somalailand kaasi oo laga hirgelin doono deegaanka Dubaar ee dhinaca koonfureed ee magaalada Berbera dhulkan oo gaadhaya ku dhawaad 4 kiiloomitir oo ay dawladda hoose magaalada Berbera ay ku deeqday wasaaradda deegaanka ayaa halkaasi ugu horeyn waxa hadal ka soo jeediyay xogayaha fulinta dawladda hoose magaalada Berbera Cabdikariim Aadan Siciid iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxaana ka warrameen dhulkan iyo ahmiyadda uu leeyahay qaranka Somalailand iyo sidoo loo baahan yahay in lagu kaydiyo dhirta kala duwan ee lagu beeri doono dalkan Jamhuuriyadda Somalailand maadaama waqtigani ay cimilada adduunku isbedelayso dhulkuna uu nabaad guur ku imanayo waxaana hadaladoodii kamid ahaa inaanu dhagax dhigayno mid kamida mashaariicda ugu weyn xagga deegaanka oo ah neersari mustaqbalka Somaliland marka laga yimaado gobolka Saaxil anfici doona isku celcelisna noqon doona 3.7 kilomitir dhulkaas oo ay dawladda hoose bixisay hawl weyn ay ka gashay in wasaaradda deegaanku runtiina aan wasiirka iyo maamulka la shaqeeyo baan ku amaanayno farxad weyn maanta inoo tahay inaan dhagax dhigno inaanu helno dhul ku haboon oo biyo leh oo cabirka badan baanu wasaaradda ku wareejino waxaan rajaynaynaa sida aanu ugu muujinay mooska tacabka lagu cadeeyay dhismayaashana gudihiisa laga dhisi doono wasaaraduna ay la wareegi doonto ay gacanta ku hayn doonto anaguna aan mar walba garab taagnaan doono inay noqoto nurseryga ugu weyn ee uu dalkani leeyahay laga quudiyo cid kasta oo dhireen u baahan dalka looga quudiyo halkan laga bixiyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa isaguna soo dhaweeyay mashruucani dhirta lagu kaydin doono isla markaasina laga hirgelin doono xarunta gobolka Saaxil ee Berbera meeshan Dubaar maanta aan joogno dhagax dhigayno Cabdirashiid Yuusuf Iibaan ayaa ku deeqay qolka ugu horeeya iyo musqushiisii inuu ka dhiso aad iyo aad baan isna ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay shirkadaha waaweyn sida Telesom iyo Dahabshiiliyana waxa laga rabaa inay meesha ka qayb qaataan dhismaheega oo siligiisii loogu xuri lahaa ay ka qayb qaataan wasiirka horumarinta deegaanka ee Somaliland Shukri Xaaji Bandare oo yana halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in goobtan ay maanta dhagax dhigeen ay noqon doonto kaydka lagu kaydin doono dhirta kala duwan ee dalka lagu beeri doono waxayna sheegtay in uu dhulkan uu yahay dhul ay si weyn wasaaraddu ugu baahnayd isla markaasina ay ku kaydin doonto dhirta loogu talagalay in dib lagu soo celiyo kaymihii waaweynaa ee ay xooluhu harsan jireen daaqina jireen kuwaas oo hodan wax dhinaca horumarinta deegaanka aad iyo aad baan maanta u soo dhaweynayna u faraxsanahay hadaan nahay wasaaradda deegaanka ama bahda deegaanka oo dhanba maanta dhulka aanu joogno ee ballaaran ee naloo ku deeqay ee dawladda hoose Berbera noogu deeqday markii ay halkii Batalaale ay magaalowday halka naloo soo raray annaga oo dhulkan weyn nala siiyay oo 3.7 ka ah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay sidii ay hore meeshaas u hirgashay tanna ay u hirgasho horta waan soo dhaweynaynaa inanka maanta nagu deeqay qolka iyo haduu alla ku roon yahay musqusha aad baan u soo dhaweynaynaa waashmaanka waxa noo haray waxa weeyaan siligii waxa noo haray ceelkii waxa noo haray banayntii inta aan wax ka beerayno waayo wuxuu noqonayaa gobolkani uu center u noqonayaa dhir aan aad loo helin baa jira meel walba aan ka bixin geedka dhamasta la yiraahdaa sida Hargeysa kuma baxo sida halkan ma aragtay ugu baxay ugu baxo meelaha kale geedka dhamasta inuu noqdo annaga caan noo noqdo oo dhulka biyaha dhanaan oo dhan ama rijanada biyaha dhanaan leh inuu runtii u qaybiyo oo kaytar gareeyo ayaan ugu talagalaynaa hadii la yiraahdo halkan kulanka naftarkiisa inaan ku ilaalino ayaan ugu talagalaynaa nurserygan wuxuu noqon doonaa iyo dhir aad u fara badan oo kalaba nurseryada ugu waaweyn buu noqonayaa Somaliland ka Hargeysa imika ugu weyn kana imika runtii ka wada weyn marka Saaxil nasiib waxa uu yeelatay programada asalkeedaba iyadoo wasaaradda deegaanka Saaxil nasiib bay had iyo jeer u yeelataa wasiirka horumarinta deegaanka ee Somaliland oo maalmahan ba socdaal ku joogtay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ayaa kormeer ku soo martay goobo kala duwan oo ay wasaaradda deegaanka ee Somaliland ay maamusho Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera